ookiyaalaha casriga ah ee bedeli doona mustaqbalka taleefanada iPhone-ka Vision Pro Apple. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. nidaamkan virtual reality-ga wuxuu wada cusub u noqonayaa tiknoolajiyadda siiba in laga gudbo isticmaalka taleefanada gacanta. Shirkadda Meta ee Facebook ayaa ayadana qorsheynaysa in sidaan kale loo isticmaalo Facebook-ga qaab VR ahaan ah ama metaverse, laakiin qorshahaas waxaa kala hormaray shirkadda Apple. Haddaba muxuu ka yiri Mark Zuckerberg ookiyaalahan digitalka ah? Apple just announced a mixed reality headset called Vision Pro. What do you think about this headset? Apple waxay qayb ka tahay oo ay doorkeeda ka ciyaaraysaa tartanka iyo xifaaltanka ay ku jiraan shirkadaha tiknoolajiyadda. Magaciigu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. Muuqaalkeenan wuxuu ku saabsan yahay Vision Apple Pro, ookiyaalaha digitalka ah ee aad ku isticmaali doonto taleefankaaga iPhone-ka. Shirkadda Apple waxay shaacisay inay soo saarayso ookiyaalo casri ah oo kuu sahlaya isticmaalka taleefanada ama laptopyada shirkaddan. Waa virtual reality, indhahaga ayaad gashanaysaa, waxaad ku programinaysaa taleefankaaga ama laptopka, wuxuuna ku soo hordhigayaa shaashada taleefankaaga. Laakiin qaabka ookiyaalahan loo isticmaalaya ayaa noqotay mid aad loola yaabay, waxayna bilow u tahay casriga iyo horumarka tiknoolajiyadda. Waxaad adeegsanaysaa indhahaaga, codkaaga iyo faraha gacmahaaga oo kaliya. Indhahaaga ayaad ku eegaysaa meesha aad u baahan tahay, kadib si automatic ayuu isku geenayaa meeshaas. Codkaaga ayaad kula hadlaysaa adigoo u sheegaya waxaad uga baahan tahay. Faraha gacmahaaga ayaad adeegsanaysaa adigoo marba meel u gadgadinayo. Shaashada ayaad soo dhawaysanaysaa, marna waad iska fogeynaysaa kaliya adigoo adeegsanayo farta iyo sulkaaga. haddii video call aad qof kula hadlayso si toos ah ayuu ku soo hor istaajinayaa. Sidoo kale programyo kala duwan ayaad hal mar isku wada furanaysaa. qaybta message-yada adigoo video call qof kula sheekeysanayo, adigoo muuqaalo YouTube-ka ka daawanayo, adigoo Google macluumaad ka raadsanayo. marba daaqad ayaad soo dhigaysaa adigoo qolkaaga iska dhex socdo. inta aad barnaamijyadaas oo dhan ku mashquulsan tahay, waxyaabaha agaarkaaga ka dhacay waad la socotaa. sida haddii uu qof guriga kula joogo intuu kuu imaado ayuu su'aal ku weydiin karaa adigoo qofkaas caadi oo la sheekeysanayo, barnaamijyadaadana meeshaas ka sii wato. midda kale la yaab kale waxaad awood u leedahay inaad meel kale isgeyso, sida inaad bedesho environment-ga qolka aad ku dhex jirto, inaad isgeyso meel xeeb ah ama meel forest ah ama meel jawigeedu oo aad u macaan yahay. laakiin xaqiiqada indhahaaga iyo maskaxdaada ayaad meeshaas geysay ma ahane, jismigaaga weli qolka un ayaad ku dhex jirtaa, sariirtaada ayaana saaran tahay. shirkadda Apple waxay sheegeen in ookiyaalahan ay soo bandhigi doonaan sanadka soo socdo, qiimihiisana wuxuu ka bilaaban doonaa $3,500. haddaba sidaan wada ogsoonahay, Apple waxay sanad walba soo saaraan ama soo bandhigaan taleefan cusub. haddana 2 bil kadib waxaa soo bixi doono iPhone 15. taleefanada ay shirkaddan sanad walba soo saarto wax farqi oo aad u weyn uma dhexeeyo, kasoo bilaabataa taleefankii iPhone 11 ilaa midka hadda ugu dambeeyo wax farqi oo aad u weyn uma dhexeeyo, waana isku wada mid. qofka haddii uu haysto iPhone 12 ama 13 ma jirto sabab uu u gadanayo iPhone 15 ama 14, sababtoo ah kulligood waa isku wada mid. haddana suuqyada shirkaddan waxaa dhooban oo yaalo taleefanka iPhone 14. si ay taleefankaas beec ugu helaan waxay sameeyeen, waxay suuqa ka saareen taleefanadii ka horeeyay si ay dadka u gataan iPhone 14-ka hadda suuqyada yaalo. haddaba Apple waxay u fakareen si ay macaamiishooda attention-kooda u haystaan in wax cusub lagu soo kordhiyo isticmaalka taleefanada. waxay bilo ka hor soo bandhigeen AirPods Pro 2 oo aad uga horumarsan kuwii hore loo isticmaali jiray. wuxuu leeyahay noise reduction kaa baloowayo buuqa bannaanka kaaga imaanayo haddii aad dhagaha gashato. qiimihiisana wuxuu ka bilaabanayaa $300. marba marka kasii dambaysa waxyaabo cusub oo hor leh ayay ku kabayaan taleefanada ee sanad walba soo bandhigaan. haddana ookiyaalahan ayay la imaadeen. haddaba 2 sababood awgeed ayay nashqadda ookiyaalahan oo la imaadeen. midda koowaad oo ah in macaamiisha ay sii haystaan oo tartanka adag ay kula jiraan shirkadaha taleefanada ay sii xoojiyaan, sida shirkadda ay hadda ishayaan ee Samsung. haddana waxaa suuqa xawli ku soo galay taleefanada casriga ah ee samaysa shirkadda Google ee Pixel. This is the Pixel 7a. You've probably heard about it or seen some things. And it turns out pretty much everything you've seen is true because it's a Pixel. But really what you should know is this is the new mid-ranger from Google and it's a bit more expensive. midda labaad ee la isdhihi karo sabab ayay u tahay in shirkadda Apple ay soo bandhigto ookiyaalahan digitalka ah. nidaamkan casriga ah ee VR-ka wuxuu noqonayaa mustaqbalka tiknoolajiyadda. dhammaan shirkadaha tech companies-kana waxay ku jiraan loolan ah inay u gudbaan nidaamkan casriga ah. haddaba muxuu ka yiri Mark Zuckerberg oo la weydiiyey su'aalo ku saabsan ookiyaalahan Vision Apple Pro? Apple just announced a mixed reality headset called Vision Pro for $3,500, available in early 2024. What do you think about this headset? Well, I saw the materials when they launched. I haven't gotten a chance to play with it yet, so kind of take everything with a grain of salt. Hey, I think that this, virtual reality, augmented reality, mixed reality, this is going to be a big part of the next computing platform. I think having Apple
come in and share that vision. waxa kale kama uusan dhihin kaliya wuu amaanay wuxuuna ku tilmaamay in Apple ay ku tillaabsatay nidaam casri ah oo la filayay in dhammaan shirkadaha tech companies-ka ay wajihi doonaan muuqaalkeena intaas ayuu noogu eg yahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay